qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed dib ugu noqday gudaha dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dib u laabashada qaxootiga Soomaaliyeed ee haatan dib ugu noqonaya gudaha dalka Soomaaliya iyagoo ay isku afgarteen dawladda Kenya iyo Soomaaliya in qaxootiga si iskooda dib loogu celiyo isla haatan qaxootiga dib ugu noqday gudaha dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan isla qaxootiga ayaa isbarbardhigay nolosha haatan ay ku haystaan gudaha dalkooda hooyo iyo midda ay ku haysteen qaxootiga Dadaab waa kuwan qaar ka mid oo ka hadlaya wili dadkii bili koowata ku guur ilaa bili lixadatiyo maxay sadaan dhaqaaradaas lamaad $100 oo caafimaad ka hay lafaantiyo walnasiim aragnoon kanagado ku Soomaaliya horta ka faraxsana wadanka kooy ilaahay dal barwaaqo laha alxamdulillah laka noorada kor oo dabaalis degantiin ku weelo ay ka noolna magaalada Baydhabo nolol ahaan horta maaragtay xagna ka nooray intana ka nooray nolol ahaan oo la haro daryeel horta meesha ka badan inta muruqa iyo dantada shaqaysadaas iyo dalkiinaasin koorey laakiin maaragtay alxamdulillah lankii mustaqbal dambe inuu helo fadaa wadanka kana gaba erin lahay noloshii iyo meeshaas intii joogay iyo daryeelka aad meeshaas dadka xaqooda jin ahaan halkaas ay roonay sidii inta u imaaday aniga ka soo guuray bisha koowaad ah laakiin wax daryeel iyo wax maaragtay sidii meeshaas xaqoobteena oo noo siinayno noo daryeelayno noo kormeerayo ma haysan laanta marka aan wadankeena wax looga fiican ma jirto biyaha bitimiin loo ah wadankeena wadiisa loo fiican nabadgelyo aad iyo aad inta ugu fiican tahay meeshaas marka ideegisha aad ala garoobta ma lagu soo bixi doona maaragtay waxna diblamaan ka gaarsiin doona mas'alad bay ka tagi doonta saas walwalkaas baan ka eegin jiray lacagaha laga bixiyo tan dhanka raashinkaana waxay qaar way qaataan toos bay qaataan waxa laga soo siiyay kaarar ay ku qaadan karaan raashinka ilaa iyo 10 dukaan magaalada Baydhabo ay ka qaataan bisha markay dhamaato ilaa 6 bilood waata aad ay u fiican yihiin waa xaaladoodii waan la soconaa waxay leeyihiin guryo oo loo dhisay ay u dhisi doonto kon hay'adda NRC loogu wareejiyay waxa kale oo jira kaashowaag ay heli doonaan ama shaqooyin ay heli doonaan oo ay qaban doonaan ilaa 400 qoys ay ahaayeen DRC soo xultay January la soo xulay 3 bilood markay dhamaatay 100 baa lagu daray 300 ayaan markii hore 4 isku noqdeen wax walbana waa okay laakiin meesha markaa imaaday ma jirto caqabad waxa dhanka waxbarashada iyo dhanka amniga zaida u liita mustaqbalka waxaan rajaynaynaa si fiican aan ku dhisto insha Allah aqoonadna oo laga badanaa ama hada khaasatan Soomaaliya marka waxbarashada Soomaaliya tan Kenya different weyn u dhahay Soomaaliya hadda waxa darkay onaga form 3 and form 4 marka caqabad weyn haysta Soomaaliya dhanka waxbarashada isla dadka qaar ayaa ka hadlay inaysan ku haysanin gudaha dalka Soomaaliya nolosha asaasiga sida caafimaadka Xasan Cabdikariin My Global TV Baydhabo